waxaa jooga sarkaalka ciidanka booliiska ka socda sarkaalka ka socda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo sarkaalka kale ee ka socda xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida arrinta marka aan ka hadlaynahay waa arrin runtii ahmiyadda noocaas leh oo aad garan kartaan qiimaha ay leedahay sidaas daraadeed waxaan doonayaa inaan idiin akhriyo bayaanka ama go'aanka dawladda insha Allah ta'ala kadibna wasiirada ayaa faahfaahin iyo xoojin ku dari doona Soomaaliya marka ay aragtay lacagaha baadda ah ee kooxaha argagixisada ah ay ka qaadanayaan ganacsatada Soomaaliyeed oo ay u adeegsanayaan qaraxyada ay ku beegsadaan goobaha dadweynaha dilalka qorshaysan iyo weerarada ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed marka ay aragtay dawladda jibka ka saaran ilaalinta hantida sharafka iyo ammaanka muwaadiniinta oo dardar gelinaysa dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab iyo argagixisada kale ee la midka ah waxay maanta ku dhawaaqaysaa in ay taabagelisay hab lagu la dagaalamayo lacagaha baadda ah ee argagixisada al-shabaab iyo cadowga la midka ah ay ka qaadaan dadka Soomaaliyeed si gaar ah dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah si meesha looga saaro lacagaha sharci darrada ah ee ay xoogga ku qaataan una adeegsadaan qaraxyada dilalka handadaadda iyo waxyeelaynta dadka Soomaaliyeed haddaba dawladda Soomaaliyeed waxa ay markay dhaqanka kadib go'aankaas kan kula wadeegaysa dadka Soomaaliyeed oo ay weydiisanaysaa qayb qaataan sidii dawladdu ay u heli lahayd macluumaadka la xiriira dadka argagixisada u qaabilsan qaadista lacagahaas iyo dariiqooyinka ay lacagahaas ku qaataan waxaan haddaba dadka Soomaaliyeed halkan kula wadaagaynaa oo muwaadiniinta ah qaababka aan doonayno in ay dadku xogta kula wadaagaan hay'adaha dawladda ee arrintaani ay qusayso muwaadin haddii aad hesho xogta shakhsiga qaada lacagahaas halka uu joogo taleefanada lacagaha lagu qaado akoonnada bangiyada loo isticmaalo ee dadkaas dhagarqabayaasha ay isticmaalaan fadlan waxay dawladda Soomaaliyeed ka codsanaysaa in aad la soo xiriirto telefoon lambarada eber 6 eber 4 eber 4 eber 36 ama eber 6 1 eber 4 eber 4 eber 37 teleefanadan waxaa si joogta gacanta ugu haya howlwadeenno tababaran oo qaranku uu xil saaray citaankaaga habka aad ku soo gudbin karto macluumaadkan waa mid ilaalinaya xogtaada iyo ammaankaaga looma baahna inaad soo dirto magacaaga iyo halka aad joogto kaliya waxaad nala wadaagi kartaa xogta aad hayso ee ku aadan baadqaadaha argagixisada ah waxaana looga shaqaynayaa in laga jawaabo xogta aad soo gudbisay sida ugu dhaqsiyaha badan talaabadan waxay qayb ka tahay dagaalka maaliyadeed ee dawladdu ay kula jirto khawaarijta al-shabaab xogta aad nala wadaagto muwaadin waxa ay muhiim u tahay in la weeqo awoodda kooxaha argaxanka daran ee argagixisada ah ee al-shabaab sidoo kaleeto in lacagaha baadda ah ee la siiyo la yareeyo waxa ay yareynaysaa oo ay joojinaysaa dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan qaraxyada dilalka qorshaysan weerarada iyo maran habaabinta ay u geysanayaan dhalinyaradeenna sidaas daraadeed waxaa maaragtay dawladda Soomaaliyeed ay cadaynaysaa oo ay halkan kugu la wadaagaysaa in talaabada aad qaado muwaadin ee ku aadan la wadaagista xogta aad ka hayso argagixisada baad qaadayaasha ah iyo aaladaha ay u isticmaalaan dawladda Soomaaliyeed ay u aqoonsan tahay inaad tahay muwaadin ka qayb qaatay badbaadinta nafta dadka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan idin ballan qaadno insha Allah ta'ala in taleefanadaas faahfaahsan iyo sidoo kale qoraallo daabacan oo gaar ah oo loogu talagalay dadweynaha Soomaaliyeed oo meelo badan aad ka heli kartaan muxuu ahaa la faafin doono oo dawladda Soomaaliyeed ay faafin doonto marka dadka waxaan u sheegaynaa warqadahaas xogta ku qoran waa mid rasmi ah taleefanadaas iyo macluumaadkaasna waa idin la wadaagi doonaa waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in dadka Soomaaliyeed dhamaantood ay gacan ka geystaan sida arrinta loo xakameyn lahaa waxaan jeclahay marka inaan ku wareejiyo wasiirka maaliyadda oo kabi doona warkayga kadibna wasiirka amniga ayaa u dambeyn doona insha Allah marka hore anigoo muxuu ahaa runtii fariintaasi loo soo jeediyay dawladdu soo jeedisay shacabka Soomaaliyeed xoojinaya waxaan muxuu ahaayay bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyay
inay muxuu ahaayey darxumada iyo dullinimada ku jiraan muddada dheer dadka Soomaaliyeed waa dad xora waa dad qab leh oo han leh waa dad sharaf iyo qiimo badan weeye iskana taariikhdooda ku suntay inaanan muxuu ahaa cidina aanay khasbi karin oo aanay ku khasbi karin waxaanay doonaynin sidaa darteed dadka Soomaaliyeed 15 sano oo runtii ururadaasi ay si muxuu ahaayey gardarro ah oo xooga u gumaadayeen inay ka dhiidhiyaan oo ay soo ceshadaan nabadgelyadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda waa ku hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed inay jiritaankeeda ilaashato maxaa yeelay dagaalka ku socdaay waa dagaal dabargoyna weey waa dagaalka ina baday macaluusha iyo muxuu ahaayey iyo abaaraha inaan u nuglaano maxaa yeelay dhulkeennii wabiyada ee quruxda badnaa ee wax soo saarka badnaa waxaanu looga shaqaysan kari waayo waa nabadgelyo xumo weey dadkeennii karaamada lahaa ee sharafta lahaa ee 15 sano ku dhintay waxay ku dhinteen waa gardarro weey marka inay muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed baraarugaan oo ay jiritaankooda ilaashadaan oo wiilashooda la muxuu ahaa doodsiiyay ee la muxuu ahaa marin habaabiyay ka reebaan ee muxuu ahaa fikirka qaldan waa mid runtii aan bogaadinayno weey waxa kaloo runtii aan muxuu ahaayey bogaadinayaa muxuu ahaayey ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan muddada dheer u soo shaqeeyay ee runtii muxuu ahaayey ahaa tiir dhexaadka dhaqaalaha waxaan markaasi labadoodaba kula dardaarmaynaa sida fariinta ka muuqatay yaanay noqonin maalkiina iyo muxuu ahaa maskaxdiinu mid loo adeegsado in muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed lagu baabasho in haldoorka Soomaaliyeed lagu laayo in dawladnimada Soomaaliyeed lagu wiiqo in karaamada ummadda Soomaaliyeed hoos loo dhigo oo ay noqdaan kuwa muxuu ahaa gaajo iyo dacdarro iyo nabadgelyo-aan adduunyada muxuu ahaa u dalan doolan inay noqon kuwa dalkooda sharaf ku yeesha oo dalkoodu meel la maal gashado oo muxuu ahaa dhaqaalahoodu kobco oo noloshoodu kobco aanay noqon waxay dhallinyaradeenna faraha badan ila muxuu ahaa shaqo la yihiin waa nabadgelyo xumo waa dalkeennoon la maal gashan waa dalkeennoon la aamini karin waa dalkeennoon lagu noolaan karin in laga dhigay marka in halkaa laga baxaay waxaa markaa yahay maalkaaga yaan loo adeegsanin in dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah lagu ciribtiro inaan loo adeegsan waxa weeye waxa la isweydiinayaa sida xadiisku inoo sheegay aakhiro halkeed maalkaaga ka keentay xageedse ku bixisay waa su'aalaha ku hortaala weey marka inuu maalkaagi noqdo mid muxuu ahaayey nafta muslimka lagu gooyo waa mid muxuu ahaayey ku sugaysa jawaabteeda weey marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed inay si wada jir iskaga xil saaraan oo muxuu ahaayey dhallinyaradeenna la marin habaabiyeyna ka soo celiyaan fikirka qaldan ee looga dhigtay gumcu rasaasoo dadka Soomaaliyeed laaya laga dhigay muxuu ahaayey inay muxuu ahaa ka soo noqdaan oo maalka lagu qaadaha loo dhow oo dad badani ay ka macaashaan iyaguna gumca noqda waxaan u tacsiyeynayaa kuwa maanta ku dhintay muxuu ahaayey Kismaayo oo hotel shacab degan yahay oo dad shacabi degan yihiin galay ee gumca laga soo dhigay ee muxuu halka isku qarxinaya ee ku dhimanaya waxay helayaan aysan jirin adduunyada iyo aakhiradoodii markaasi habaabiyay marka noocaas oo kale inay noqdaan dad bay fariin u diraysaa dad bay macaash u tahay aan joogin halkan oo ka faa'iideysta waxaas oo kale marka inaan noocaas oo kale iska qabanno oo muxuu ahaa waajahno oo si wada jir u waajahnaay waa mid aan ku khasbannahay weeye jiritaankeenana ilaalinaysa weeye waxaan fariin u dirayaa dhallinyarada la marin habaabiyey ee daroogada ee muxuu ahaayey laga dhigay rasaastii laga dhigay gumcii dhacay laga dhigay inay fahmaan inay nolol jirto inay muxuu ahaa shaqaysan karaan inay diintooda si sax ah muxuu ahaayey ay ugu dhaqmi karaan inay dadkooga la noolaan karaan inuu dalkoogu barwaaqo gaari karo inay taa fahmaan weey marka taasna waxaan kula leeyahay dhallinyaradaasina inay ka soo noqdaan ay dadkooga dhinac ka raacaan weey marka waxaan fariinteedu tahay war maalkaaga hadday ganacsato noqoto hadday muxuu ahaayey qof shaqaysta noqoto hadday ruux kasta noqoto leeyahay ka joojiya inuu noqdo hub mid dadka muxuu ahaayey lagu laayo mid dalkaaga lagu burburiyo inuu noqdo waxaan ka shaqaynaynaa waa nabad waxaan ka doonaynaa waa barwaaqo doonaynaa waa dadkeenoo muslima waxaan doonaynaa waa iyadoo masaajidadii lagu soo noqday oo diinta si nabadgelyo loo dhiganayo oo muxuu ahaayey uu ka socdo wacdiga iyo daraasaadku ay masaajidada ka socdaan taasaynu muslim ku nahay laakiin kuma noqonayno gumcu rasaasa kuma noqonayno taasi waa baabi'inteenna weey waa waxa maantayna haysta weey marka idinku dheeraan maayo
fariinta laydiin soo gudbiyey waxay daaran tahay inaan si wada jira dhammaanteen isu taagno inaynu dalkeenna qiimo iyo sharaf u yeelno ummaddeennana badbaadinno meel nabada oo lagu noolaan karo oo horumar samayn kartana aynu mustaqbalkeenna iyo dalkeenna aynu ka dhigno waa mahadsantii alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah baaqa ka soo baxay dowladda oo uu ku baaqaayo in la joojiyo qarashaadka baadda ah iyo lacagta baadda ah iyo xoogga ay al-shabaab ku qaadanayaan hantida ummadda soomaaliyeed waa baaq ay dowladda go'aansatay kadib markii shacbiga soomaaliyeed iyo xukuumadda oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ay go'aan ku gaareen in aan lana noolaan karin shabaab waa dhammaaday waqtihaa muddo 15 sano ah ama 16 sano ah ayaa shabaab lala noolaa oo qayb ka ahaayeen dhaqaalaha oo qayb ka ahaayeen siyaasadda waqtigii shabaab lala noolaan lahaa waa dhammaaday shabaab waxay duulaan ku yihiin dowladnimada waxay duulaan ku yihiin nafta waxay duulaan ku yihiin cirdiga waxay duulaan ku yihiin dhaqanka soomaaliyeed waxay duulaan ku yihiin jiiritaanka ummadda soomaaliyeed saad og tihiin bilihii la soo dhaafay waxaa socday howlgallo waaweyn oo al-shabaab lagu naafeeyey deegaano badan oo haysteenna gacantooda looga bixiyey meelaha ugu badan iyo dhibka ugu badan oo ay dadku hayaan kaliya ma ahayn inay dilaan ma ahayn inay qarxiyaan ma ahayn inay tafsiir qaldan ka bixiyaan diintii dadka ay lahaayeen ma ahayn inay inkiraan taariikhdii iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed 1,000 sano iyo ka badan ayay tahay muslim maanta in la yidhahdo muslimiin ma tihiin oo la laayo oo la qarxiyo ayagoon loo kala saaraynin carruur iyo ciroole ayagoon loo kala saarayn dumar iyadoo birimageedadii aan la ilaalinaynin iyadoo deegaankii iyo xihii iyo dhismayaashii iyo wax kasta oo qiimo lahaa oo dhulka guudkiisa saarnaa ay shabaab baabiin waxa ay isticmaalayaan ama adeegsanayaan ama u fududaynayo waa dhaqaalaha ay ka helayaan baadda ay dadka qaadayaan haddaba dowladda oo ka jawaabaysa rabitaanka shacbiga soomaaliyeed waxa ay idinkugu baaqaysaa inaad diidaan marka koowaad sharci ma aha lacagtaas la qaadayo wadda aad ku bixinaysaanna ma aha lacagtaas la bixinayo waad og tihiin qarax baa lagu abaabulayaa nafta ayaa lagu laynayaa naf ayaa lagu goynayaa hantidii ummadda soomaaliyeed baa lagu burburinayaa dowladnimadii iyo jiritaankii ummadeed ayaa lagu wiiqayaa dadkii baa lagu barakicinayaa waad og tihiin inta shaqaysan lahaa xoolahooda dhaqan lahaa beerahooda falan lahaa inay noolaan waayeen qaxa joogtada ah oo aan dhammaanaynin oo haweenka iyo carruurta iyo dadka waayeelka ay ka qaxaayaan dadka oo dibadaha ay aadayaan kadibna dhaqanrogan iyo dhaqanrogan inuu dadkeenna ku dhacaayo waad la socotaan dhigbaxa intaas la eg haddaba qof kasta waxaan ugu baaqaynaa naftiisa inuu badbaadiyo qof kasta naftaada waxaa kaa saaran mas-uuliyad intaadan qof kala gaarin naftaada badbaadi shilinka aad bixinaysid waa mid adiga lagugu dilaayo inta lacagtaada la qaatay yaan lagu dilin qof kastoo mas-uuliyad baa kaa saaran naftaada badbaadi marka labaad qof kastoo mas-uuliyad waxay kaa saaran tahay qoyskaaga inaad badbaadisid qoyskaaga ha u oggolaanin inay qayb ka noqdaan lacagta la bixinayo inay qayb ka noqdaan tafsiirka qaldan oo dadka lagu leynayo inay soo dhoweeyaan ama qariyaan dadkaas lala dagaalamayo oo jiritaankeenna diidan qof kasta waxaa mas-uul uu ka saaran yahay dariskiisa qof kastow shilinka aad bixinaysid ama kaalmada aad kaalmaynaysid shabaab waxay baabi'inaysaa burburinaysaa naftaada waxay burburinaysaa qoyskaaga waxay burburinaysaa dariskaaga haddii taas oo aan joojinno dhaqaalaha la bixinayo oo aan u hoggaansanno talooyinka iyo sharciyada iyo siyaasadaha dowladda ka soo baxaya iyo xukuumadda waxa ay inoo sahlaysaa nafteenna inaan badbaadinno qoyskeena inaan badbaadinno dariskeena inaan badbaadinno ummadda soomaaliyeed guud ahaanteed iyo dowladnimadana inaan badbaadinno wasaaradda amni ahaan ujeedaan hay-adihii fulinta sharciga haddii ahaan lahaayeen booliskii xeerlaalintii iyo maxkamadihiiba goobjoog ayay meeshaan ka yihiin sidaas darteed baaqa la idiin soo jeediyey talooyinka la idiin siiyey waa talooyin adinka naftiinna iyo maalkiinna iyo diintiinna iyo dhaqankiinna iyo taariikhdiinna iyo dowladnimadiinna anfacaya waxaan idinkugu baaqaynaa in loo hoggaansamo wada shaqayn buuxdana lala yeesho hay-adaha dowladda sharcigan ama talooyinkan waxa loo soo saaray waxay tahay ama siyaasaddan waxa loo soo saaray waa badbaadadiinna dowladda ayadaa mas-uul ka ah inay badbaadiso ka shaqayso badqabka qof kasta oo Soomaali ah
kii qori ay ku difaacaysa dagaal bay ku difaacaysaa kii sharci iyo nidaam ay ku difaacaysana way ku difaacaysaa kii ay ku badbaadinayso inuu ay ka hor istaagto qalad asaga u galayna way ku difaacaysaa waxaan idinkugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waxaad qayb ka noqotaan dadaalka dawladda ay bixinayso oo ah in aad u hoggaansataan talooyinka iyo siyaasadaha ay dawladda ay bixinayso si looga badbaado qataraha ay maleegayaan al-shabaab waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin